السلام عليكم. Een, waxaan maanta halkan idinku sheegayaa ama idinku sharxayaa dadka Facebook isticmaalo inta badan way yaqaanaan sida u isticmaalaan laakiin waxaad moodaa in mararka qaarkood dad badan ay dhib ku tahay. Marka waxaan isku dayaa casharro badan oo isdabayaal in halkan idinku sharaxno Facebook sida loo isticmaalo. Barnaamijkan oo idin diyaarisay eTawakkal, Tawakkal Money Express. Mar kale waxaan leenahay mar kale kusoo dhawaada barnaamijka eTawakkal. Facebook haddii aan fiirino haddartan account aan ku jiro waa sida account personal oo ma aha business. Accountnada businesska dib baan usoo sheegaynaa iyo faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay. Halkan oo kale markaad imaatid waxaa weeye Facebook account baad leedahay oo waad furatay accountkii. Marka account haddaad furatid marka ugu horreyso waxaad imaanaysaa waxaa weeye waa pageka oo maaragtay oo accountkaaga ayaad soo gelaysaa. Pageka ugu horreeya aad soo geshid wuxuu noqonayaa kan oo waxaa kuu soo baxaya marka waa home pagekaagii weeye. home pagekaagii waxaa usoo qaadataa isagoo adag sida operationkaaga oo kale meesha aad ka shaqo tagaysid oo aad maaragtay mar walbo kala soconaysid macluumaadkaaga iyo waxa ka socda Facebooka. Marka haddii aad doonaysid inaad home pageka aad ka dhuntid oo kale mar walba dib ugu noqotid waxaad taabanaysaa halkaas oo ah Facebook loogadeeda ayaa dib u taabanaysaa waxaa kuu soo gelaya markaas pagekii oo ahaa home pageka oo marka aad la soconaysid saaxiibada iyo xisaabtaada waxa ay qoreen. Contentiga marka home pageka ayaa waxa weeye ama news feedka waa isku mid waxaa arki kartaa halkan news feed ay ku qoran tahay haddii iyadana aad taabatid waa sidoo kale waa news feedka iyo home pageka mar walbo waa isku mid laakiinse haddii accountkaagu uu cusub yahay halkan waxaad ujeedaa inay ku qoran tahay welcome taa macnaheedu waxa weeye account cusub weeye oo markaas Facebook waxay ku sheegaysaa waxyaalaha sida loo isticmaalo Facebook haddii aad tahay qof wax badan isticmaalaya Facebook oo si fiican u yaqaano most likely waxaa suurtagal ah in welcome aysan meesha kuugu oolin oo ka baxdo oo laakiin markaas news feed uu kaaga bilaabmaya iyo messageka iyo wixii la mid ah marka haddii aad ka soo qaad haddii aad messageka eegaysid oo kale messageka basically waxa weeye waa sida emailka kale kaas oo la isugu diraya within maaragtay Facebook dhexdiisa dadka ayaad u diraysaa markaasito emailka ama wixii aad kuu soo diray meeshii aad ka akhrisan lahayd weeye marka haddii aad halkaada marayso kale aad rabtid inaad dib ugu noqotid home pagekaagii waxaad taabanaysaa Facebook ayaa dib u taabanaysaa ama se news feedka sida hore kuugu soo sheegay marka aad iyo aad ay muhiim u tahay inaad fahamtid basicka Facebook haddii kale waxa weeye qofku ku wareeraya oo macnaha waa barnaamij waa application aad iyo aad u weyn oo mararka qaarkoodna faa'iido badan laga samaysto qofka haddii uu si fiican u fahmayo. haddaan dib ugu noqono home pageka ama se news feedka waa meesha aad saaxiibka ama xisaabtaada aad kula xiriiraysid mar walbo. newsfeedka marka waa ka haddaan newsfeed dhinac uga baxno marka dhinacan bidixda waxaad ujeedaa applicationo badan ayaa ku qoran saan u sheegnay welcome way tirtirmaysaa haddii muddo badan aad isticmaalaysid messageka waa meeshii aan ku sheegay emailada aad within Facebook aad ku diraysid eventiska haddii aad taabatid waa meesha aad ama haddii aad rabtid inaad ka qayb gashid dhacdooyin ama se adiga aad saxsaabtaada ay kuu suubiyeen ay kuu soo casumeen ama se adiga aad mid samaysid find friends haddaad taabatid waa meeshaas axsaabtaada aad ka ogaanaysid ama se aad dad cusub u diraysid markaas inaad u dirtid sida emailkaaga oo kale ayaa gelinaysaa oo markaas step by step isaga ayaa ku daadihinaya si aad markaas axsaabtaada o dhan aad uga casuntid Facebookkaaga mar kale waxaan dib ugu noqonayaa marka home pagekaygii home page marka saan dib ugu noqdo waxaan taabtay news feedka sidoo kale pages ad hadda for example aniga hadda waxay igu jirto kale ad advertisement baan sameynaya sababtoo ah Tawakkal Money services advertisement bay leedahay marka kaasoo kale waxa laga yaabaa adiga suuragal ah inaadan lahayn sababtoo anaga waxaan leenahay business account waa leenahay waa personal account kan waa kii personal account ah way markaas midda kale application ayaa ku soo baxaya sida application games oo kale waxyaalaha la ciyaaro sawirada oo kale musica noteska iyo wixii la mid ah so the more applicationkaaga uu badan yahay the more uu markaas uu badanaya markaas listiga halka dhinaca bidixda kuugu jirto marka waxa muhiim u ah marka aad iyo aad inaad fahamtid home pageka sida loo isticmaalo mar kale haddii aad doonaysid home pagekana ku noqotid ama se markii aad login garaysid oo assign garaysid home pageka wuxuu ku keenayaa pagekaaga ugu horeeya kadibna haddii aad ka dhuntid news feedka ayaa dib u taaban kartaa ama si mar kale home pageka ayaa taaban kartaa dhinacan bidixdan waxaa kugu jira applicationada marka bal maanta intaa noo joogto home pageka waxaan cashirka dambe ku sharxi doonaa news feedka oo keliya siduu u shaqeeyo cashiradan waxay noqonayaan cashiro istabayaal ah sida looga faa'iidaysto macluumaadka Facebook oo ah application aad iyo aad u weyn oo marka aad looga faa'iidaysan karo qofka doonayo inuu ka faa'iidaysto mar kale Tawakkal oo idin leh kusoo dhawaada macaamiisha Tawakkal waxaan idin leenahay mar kale dib u fiiriya etawakkal.com oo ah mashruuc adeeg cusub oo ugu talagashay Tawakkal Money Express